بسم الله الرحمن الرحيم وحكو سو دوينيا معدك هودمان فيديوغان waxaan uga hadlaynaa insha Allah sida qofka applicationska u saaran desktopka oo soo saaran karo si permanent ah taskibarka oo qaybta hoose sida kaga muuqata applicationskan si aanan ahayn temporary soo kaliya waxa sameeynaa waxa soo fureynaa applicationka aad rabtid inuu ka soo muuqato mar walba taskibarka tusaalahan hadda waxaan soo usoo qaadanaynaa control bar cadeyna right click open automatic wuxuu ka soo muuqday taskibarka soo inta badan taskibarka waxa ka soo muuqdo application walba ee daaran ee la soo kiciyay ee laga shaqeysiinayo soo applicationka haddii aad iska cancelo halkan wuu ka baxaya automatically soo waxaan rabaa haddii applicationkan aad cancelo xataa inuu ka soo muuqdo taskibarka waxaan ku laabanaynaa right click open marka hore waxaan soo fureynaa applicationka then applicationka korkiisa taskibarka korkeeda yaa cadeyna right click kadibna waxaan ka dooranaynaa ku bin garay taskibarka halkan si permanent ah u joogo soo kadib waa iska canceleynaa taskibarka automatically mar walba control bar aan rabo inaan soo kiciyo taskibarka iyo isticmaalin karaa korkiisa oo loo yaqaano ka soo muuqanayo control bar automatic click ma baxayo soo haddii aan rabo inaan iska saaro applicationska ay ugu bataan taskibarka iyo wada saaran oo qaar iska remove karay oo ku celiyo desktopkooda oo hadhow diyaar rabaan ka dalban karo desktopka isla asiga yaa waxa leeyahay right click kadib meesha daaya pin ahead ay waxa noqonayso unpin so unpin from taskibar it means waa ka remove garayna taskibar mar walba hadhow aad soo kicisid taskibarka soo fuuli laakiin shaqada rabtid markaa ka qabsatid aad cancel halkan uu ka baabacaya tusaale ahaan ada application kale hadda halkan oo kale waxaan soo gelinaynaa wordkan haddii aad soo kicino application walba oo la soo kiciyo hadhaane wuxuu ka soo muuqan doonaa qaybtaas hoose soo haddii aad iska cancelo applicationkan automatically wuu baxaya soo wordkan mar walba waxaa rabaa mar walba aad soo daaraayo oo new page cusub aan rabo inaad sameeyo inuu igaga soo muuqdo halkan soo waxaan leeyahay right click pin soo mar walba aad cancelo meeshiisu yaalaa haddii aad rabo inaad iska cancelo oo asiga dhan ka remove gareeyo taskibarka unpin yaan leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله.